kulandiimada ay soo qabanqaabiyeen culimadiinka ee Ahlusunna ee gobolada Puntland ayaa waxa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo waxaana kulankaasi ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee culimadiinka iyo dadweynaha aad fara badan. kulankan ayaa intii uu soconayay waxa laga soo jeediyay maxaadarooyin ay soo jeedinayaan culimada isugu timaaday. alhamdulillah alladhi ja'ala ad-da'wata ila Allah wal naf'a wal nasihata lil muslimin wa afdal al-qurbat wa afdal al-darajat وأهم المهمات في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. كذبنا لهذه الخسارة ولا تسوقنا بإلهين وغيره وبشهادة ديني وغيره. المعنى ما كان جلاشي وهذا أكيد. هي شريعة الإسلام في خلافه يعني هلا أوبر الشريعة اللي قهر تجمعها. هذا واحد دين شرعه كل ساعه marka qofku islaamka noqday tawxiidka ugu dambeyntii kulankaasi oo socday muddo 3 bari ah ayaa waxa laga soo saaray war muftiyeed waxaana qodobada kulankaasi saxaafadda u akhriyay Sheekh Cabdiraxmaan oo kamid ah culimada culimada waxay u baaqayaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inay alla ka cabsadaan wuxuu farayaan fartoomaan waxa uu ka reebay ka haraan labo culimadu waxay u baaqayaan dadka madaxda ama dhaqan ha ahaadeen ama madaxda dawliga ha ahaadeen inay Ilaahay uga baqaan heerka ay ummadda u hayaan cadaaladana ku dhaqaan dalka iyo dadka shacabkana waxay ugu baaqayaan inay adeecaan madaxdooda. saddex culimadu waxay ugu baaqayaan dhalinyarada in ay joojiyaan tahriibka oo aan wax faa'iido lahayn adduunkana waa iyo guryo aakhirana waa xisaab. afar culimadu waxay ugu baaqayaan waalidiinta Soomaaliyeed in ay ilmahooda ku dadaalaan tarbiyadooda iyo tacliintooda ayna baraan diinta islaamka. shan culimadu waxay ugu baaqayaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada inay ka waantoogaan dhaqamada xun ee ka hor imaanaya shareecada islaamka. lix culimadu waxay ugu baaqayaan dadka caadaystay in ay shubheeyaan ama ay xaaraantinimeeyaan nikaaxa taxkiimka ama masaafada inay ka waantoogaan kaas oo sharciga islaamka ku bannaan daliilkeedana u lahayn. toddobo culimadu waxay baaq u dirayaan ganacsatada Soomaaliyeed in ay ka ganacsadaan wax xalaal ah sekada waajibka ku ana ay siiyaan ciddii xaq u yeelatay ku bixiyaan meelaha wanaagsan kana kaalmeeyaan masaakiinta. sideed culimadu waxay ka digayaan dulmiga muslimiinta waxayna ku baaqayaan in la joojiyo wixii qabayta ah. sagaal culimadu waxay uga digayaan ummadda Soomaaliyeed kooxaha fikirada khaldan aaminsan ee dadka islaamka ku gaara xukmiya ama dhiigooda banaysta. toban culimadu waxay ugu baaqayaan ummadda muslimiinta inay u diyaargaroobaan bisha barakaysan ee Ramadaan ee lagu soo dhawaan haddii alla idmo. guntii iyo gabagabadii culimadu waxay Ilaahay uga baryeen ummadda Soomaaliyeed maslaxad waarta iyo inuu aamin iyo imaansiyo gaar ahaan Soomaaliya. kulankan ayaa mid ay qabtaan sanad walba culimadiinka ee Ahlusunna ee gobolada Puntland waxaana intiisa badan looga hadlaa maxaadarooyin. Xuseen Axmed Faarax Xuseen Hadaari TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Gaalkacyo.